ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida. Qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah madaxweyne Dani oo weerar afka ahi ku qaaday dowladda federaalka fariin u diray ra'iisul wasaaraha cusub ee la soo magacaabayo. waxaa sii yaraanaya fursadaha xilka ra'iisul wasaaraha loogu magacaabi karo cusuble iyo qorshaha madaxweyne Farmaajo. dowladda Soomaaliya oo hal shuruud ku xirtay dadka ka imaanaya dalka dibadiisa. muxuu madaxweyne Waare kala hadlay safiirka Qatar oo Muqdisho kula kulmay iyo qorshaha cusub ee Villa Soomaaliya ay la soo baxday oo laga digay maxaa soo kordhay. haddaba xog iyo macluumaad dheeri ayaan arrimahaas idinkaga haynaa. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa. markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan. aynu ku horeynay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani oo khudbad ka jeedinayay sanad guurida aasaaska maamulkaasi ayaa ka hadlay xaaladda dalka isagoo weerar afka ahi ku qaaday dowladda federaalka ee uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Siciid Dani ayaa sheegay in dowladda dhexe maalmihii u dambeeyay ay la soo baxday aasaasan aan wanaagsaneen oo dib u dhigi karta dalka sida uu hadalka u dhigay. runtii dowladda federaalka waqti fiican oo badan ayaa la geliyay balse ayaantan waxay la soo baxday aasaasan aan wanaagsaneen oo dib u dhigi karta kala dambeynta iyo horumarka waxa uuna ka dhashaa dhowris la'aanta dastuurka dalka ayuu yiri madaxweyne Dani. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in madaxda dowladda federaalka looga baahan yahay inay ilaaliyaan dastuurka dalka oo uu shaaciyeen isaga oo kaliya heshiis lagu yahay. adeega dowladda federaalka waa mid ku qoran dastuurka muddo ay leedahay dowlad waliba waa inaan dhan looga talaaban heshiiskaasi oo kan awoodda u siinaya shaqada dowladda sidoo kalena xakameynaya waa xeyndaab aan laga gudbi karin ayuu markale yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani. ugu dambeyntii waxa uu ka soo horjeestay ansixinta golaha adeega garsoorka oo dhawaan ay meelmariyeen golaha wasiirada isagoo sharci darro ku tilmaamay. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii u dambeeyay dhaleecin xooggan ay la kulmaysay dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii la riday ra'iisul wasaare Khayre. geeska kalena maamulka Puntland ayaa fariin u diray ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabi doono. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani oo magaalada Gaalkacyo uga qayb galay munaasabadda xuska 22aad ee ka soo wareegatay aasaaska Puntland ee 1 August ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah sida magacaabidda ra'iisul wasaaraha cusub iyo xaaladda guud ee dalka uu marayo xilligan kala guurkaahi. Siciid Dani ayaa marka hore shaaciyay in Puntland aysan raali ka ahayn ansixintii golaha adeega garsoorka iyo hay'adda badroolka wuxuuna tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya laga rabo in bilaha yar ee u haray aynan isku mashquulin arrimahaasi. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha cusub la soo magacaabi doono kaliya laga rabo inuu dalka doorasho u geliyo. arrintan ku saabsan kheyraadka oo badroolka iyana yaa lagu kadsoomin caalamka waxaan u sheegayaa hantida Soomaaliyeed oo heshiis ku ahayn ciidii gadata iyada mas'uulka Puntland hore u sheegtay xeerarkaasi kama tirsana guddiga la sheegay cid kuma darsan dowladda hadda 3 bilood u hartay shuruucdaasi inay isku mashquuliyaan ma ahan xitaa dowlad rasmi ah ama ra'iisul wasaaraha soo magacaaban muddo xileedka yar ee u dhiman waxa laga rabaa inay dalkani doorasho geliyaan waxa kale inay waqti ku dhimaan laga rabo. arintani waa fariin cad oo aan rabo inaan dowladda federaalka u diro ayuu yiri madaxweyne Siciid Cabdilaahi Dani. dhinaca kalena madaxweynaha Puntland oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay madaxda dowladda dhexe inay ilaaliyaan dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan golaha wasiirada Soomaaliya ay ansixiyeen golaha adeega garsoorka taas oo si weyn loogu dhaleeceeyay dowladda dhexe oo ah qodob aad muhiim ugu ah dowlad dhiska Soomaaliya oo hay'adda saddexaad ee aasaaska waa waliba sharciga oo waliba uu ka dhalan doono hay'ad maxkamadda dastuuriga ah sida sharci darrada ee loo maray iyo iyagoon awood u lahayn inay saxiixaan oo garyaqaanadii ay ka qayliyeen oo bulshadii rayidka ka qaylisay oo cid walba ay sheegtay. waxaan leeyahay dowladda Soomaaliya arrimo dhahaya madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo arrintaa ha ka digtoonaada. dalkan hadduu soo kabanayaa dib dambe yaan loogu celin kala irdhow. qodobkaas waa qodob muhiim ah. arrinta ku saabsan kheyraadka oo ku saabsan badroolka iyadana yaan lagu kadsoomin. caalamkana waxaan u sheegayaa hantida dadka Soomaaliyeed ee heshiis ku ahayd ciddii gadatay iyadaa mas'uulka ah. Puntland hore u sheegtay xeerkaas kama tirsana guddiga la sheegay cid kuma darsan
dowladda hadda 3 bilood 4 bilood u harnana shuruucdaas xataa dowlad rasmi oo ra'iisul wasaare sax hadday soo magacaabaan xataa howlahaas inay isku mashquuliyaan ma ra'iisul wasaare hadduu soo magacaabay iyo xukuumaddiisu muddaxileedka yaroo dhiman waxaa laga rabaa dalka inay doorasho geliyaan wax kaleeto inay waqti ku dhumiyaan lagama rabo arrintaasna waa fariin cad oo aan rabo inaan dowladda federaalka u diro intaas waxaan rajaynayaa iyadana in shirkii dhuusamareeb loo ballansanaa iyadana inuu sidooda u qabsoomo oo dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo xukuumadaha dowladaha xubnaha ka ah ay isu yimaadaan oo niyad sax ah lala yimaado ayaantii horeeto waxaan nidhi niyad wanaag baan ku tagnay laakiin markaan dowladda federaalka xisaabtan baa uga tegi doonaa niyad wanaagii iyagaa ku cayaaray tii horeeto sidai ula dhaqmeen waa la xisaabtamayaa dalkana si saxa ayaa la rabaa in danihiisa looga wada shaqeeyo cid marti ugu aamo leh dowlad walba waxaa la rabaa bareeraheeda inay dhiibato waxa dadka danta ugu jirta inay ka hadasho waan rajaynayaa Soomaali isku duuban oo marxaladda ka gudubtay in la hado waxaan ku soo gabagabeynayaa baaq aan u diraayo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo aan rajaynayo in ay dalkooda u naxaan danihiisa ay ka shaqeeyaan duruufaha adag ee soo wajahana ay mid ka noqdaan qaybaha hore wararka Soomaalida ayaa daawanaysaan halka aad nagala socotaan waa shabakada wararka maanta geeska kalena ila lagu kalsoon yahay oo aan ka helnay xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa inoo sheegay in xildhibaan Cabdiqaadir Cali Cusuble uu ku gacan saaray in loo magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xulashadiisa ay ka socoto Villa Soomaaliya wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu sheegay odayaal iyo siyaasiyiin ka soo jeeda beesha mudulood oo xildhibaan Cabdiqaadir u doonay xilka ra'iisul wasaaraha inuusan la shaqeyn karin shakhsigaasi isla markaana ka raali noqdaan dalabka ay u soo bandhigeen inuusan aqbali karin balse waxa uu madaxweynaha ku qanciyay inay la yimaadaan siyaasi kale oo xilkaasi u buuxin kara lama oga sababta uu madaxweyne Farmaajo ugu diiday Cabdiqaadir Cusuble xilka ra'iisul wasaaraha balse warar aan helnay ayaa sheegaya inaanay wada shaqeyn dhexmari karin madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo dhinac ah iyo xildhibaan Cabdiqaadir Cusuble oo la og yahay inuu mucaarid ku yahay dowladda sidoo kale dadka qaar ee gorfeeya siyaasadda ayaa sheegaya in xildhibaan Cabdiqaadir Cusuble uusan qaadan karin amarada qaar ee qar iska tuurka ah ee ka soo baxaya Farmaajo iyo saaxiibadii isku koobay talada dalka taas oo meesha ka saaraysa in kursiga la saaro shakhsi aan fulin karin amarada Villa Soomaaliya ilaa hadda waxaa xilkaasi ugu cadcad wasiirka ganacsiga xukuumadda Khayre Injineer Cabdilaahi Cali Xasan kaas oo hore ugu soo tartamay xilka madaxweynaha Soomaaliya waxaa sii yaraanaya fursadaha xilka ra'iisul wasaaraha cusub loogu magacaabi karo agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya oo markii horeba la hadalhayay marka laga soo tago hadallada suuqiya lama jiro war rasmi ah oo laga heli karo madaxtooyada oo ku aadan xilka ra'iisul wasaaraha iyo cidda loo magacaabayo dhinaca kalena hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa maanta war cusub ka soo saartay dib u furista duulimaadyada caalamiga ee dalka qoraalka hay'adda ayaa lagu sheegay in biri oo isniina dib loo furayo duulimaadyada dibadda iyadoo la fulinayo go'aanka ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliya sidoo kale hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya ayaa shuruud ku xirtay dadka kala duwan ee ka imaanaya dalka dibadiisa waxaana ay shaacisay in qof walba laga rabo inuu haysto shahaado cadeynaysa inuusan qabin cudurka faafa ee COVID-19 taas oo qofku qaatay ugu badnaan 72 saacadood ka hor inta aanu safarka soo gelin waxaa kale oo hay'adda ugu baaqday shirkadaha ka shaqeeya duulimaadyada inay macaamiishooda ku wargeliyaan siyaasadda cusub ee lagu xakameynayo COVID-19 si kastaba ahaatee golaha wasiirada ayaa 30 Juulaay shaaciyay in dib loo furayo duulimaadyada dibadda oo hakad la geliyay coronavirus dartiisa madaxweynaha Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ku qaabilay safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya Ambassador Xasan bin Xamza Asad Maxamed waxaana ay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo la xiriira horumarinta deegaanada Hirshabelle iyo dardargelinta mashruuca dhismaha wadada Jowhar iyo Muqdisho ay maalgelinayso dowladda Qatar wasiirka ayaa madaxweynaha faahfaahin ka siiyay fulinta dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar oo ay dhisayso shirkad laga leeyahay dalka Turkiga waxaana uu sheegay inay ka go'an tahay dardargelinta mashruucaasi waxaana madaxweyne Waare uu dowladda Qatar kaga mahadceliyay mashruuca ay ka wadaan dalka oo ay qayb ka tahay mashruuca jidadka Muqdisho afgooye kan Jowhar iyo waliba magaalada Muqdisho sidoo kale inta kulanka uu socday waxay si qoto dheer ah kaga wada hadleen fursadaha maalgashi ee Hirshabelle kaga jira iyadoo
iyadoo safiirka uu sheegay in dhowaan ay ka fulinayaan mashaariic horumarineed ayna diyaar u yihiin inay ka faa'iideystaan fursadaha maalgashi ee Hirshabelle maadaama Hirshabelle ay tahay dhul qani ah oo uu eebba ku manaysay kheyraadka dhinac kasta ahi. ugu dambeyntiina gaashaanle Ismaaciil Cabdi Maalig oo ah taliyaha guutada 16aad ee Commandos-ka Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa kormeer ku tagay xerada ciidamada ururka 5aad ee Danab. Taliyaha waxa uu sidoo kale gooni la yeeshay kulamo gooni la yeeshay saraakiisha ciidamada Danab ee ku sugan magaalada Kismaayo, wuxuuna kala hadlay sidii loo fulin lahaa howlgal ka dhanahay ururka Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida. Taliyaha waxa uu sheegay ciidamada inay dardargelin doonaan howlgalada dalka looga saarayo ururka Al-Shabaab gaar ahaan deegaanada Jubbaland. Al-Shabaab ayaa waxay badanaa weerar ka geysan deegaanada Jubbooyinka waxaana isku dayaan inay saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM mar waliba ay beegsadaan. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga inta. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar channelka sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkan soo gelino.